gabadhani waa Megan, waxay ka mid ahayd aktaradii ugu caansanaa dalka Mareykanka. Megan waa gabadh madow ah oo ka soo jeeda madowga degan dalka Mareykanka. Waxay jeclaatay ama xiriir u dhex maray wiil ka soo jeeda boqortooyada Ingiriiska, weliba waa dhaxal sugaha ay ayeeyda u tahay boqoradu. Markii uu boqorada u sheegay uu ku yidhi, ayeeyo waxaan guriga soo gelinayaa ama qoyskeena ka mid noqon doonta inantaanu iscalmanayno ee Megan waana gabadh madow ah. Way ka diideen boqortooyadu, waxaana ay yidhaahdeen dhaxal uma lihin in madowgu ka mid noqdo qoyska boqortooyada dalka Ingiriiska. Laakiin wiilkan Harry waa uu ka diiday, ilaa markii dambe uu ku adkaystay inuu guursanayo Megan oo qof madow ah, waxaana ay noqotay qofkii madowga ahayd ee ugu horreeyay ee ka mid noqota boqortooyada dalka Ingiriiska. ilaa markii dambe ay u adkaysan kari weyday gumayskii kaga yimi boqortooyada Ingiriiska oo diidaya madowgeedan inuu ku sii faafo boqortooyadan dhaxalka u ahayn. ilaa markii dambe ay iskaga guureen, gurigiina way ka baxeen labadooduba, waxaana ay tageen dalka Ingiriiska oo ay guri weyn ka degeen si macaana loogu soo dhoweeyey. maanta qoyskii farxad badan ayaa ka muuqata, caruurna way isku leeyihiin, waxaana ay degan yihiin dalka Canada oo way ka raysteen boqortooyadii loo diiday in dhibicda madowga ahi ay ku faafto cunsuriyad awgeed. ninkani waa Barkad Cabdi, waa Soomaaligii ugu horreeyay ee ka mid noqda filimada dalka Mareykanka. waxa uu ka cararay magaalada Muqdisho 1990 markii ay socdeen dagaaladii sokeeye, waxaana uu gaadhay gobolka Minneapolis, Minnesota ee dalka Mareykanka. markii loo qaatay filimada, waxa uu u guuray magaalada ay ku nool yihiin dadka caanka ah, bilyaneerada caalamka iyo aktarada ayna ka jiraan shirkadda weyn ee caanka ah ee Hollywoodka. Barkad Cabdi waxa uu degan yahay imika Los Angeles, waxaana uu haystaa $10,000 oo uu ka sameeyey faa'iidadii filmadii dalka Mareykanka. weli kama soo dhex muuqan filin uu keligii daadahayo uu aktar ka noqdo, laakiin boos waxa uu ka noqday filinkii 7 sano ka hor Captain Phillips ee burcadbadeeda. kaalin muhiim ah ayuu ka qaatay, waxa uu ku guulaystay bilado kala duwan, waana Soomaaligii ugu horreeyay ee biladaha noocaas oo kale ah ka qaata shirkadda Hollywoodka ee dalka Mareykanka. caan ayuu ka yahay dunida. marka taariikh ahaan la eego, isaga ayaa ku xusan Soomaalida ugu firfircoon ee filmada, inkastoo ay jiraan Soomaali fara badan oo la metelaysay filinkii Captain Phillips, haddana keligii ayaa ugu dhaqdhaqaaq badan. waxaa laga yaabaa sanadkan gudihiisa 2021 inuu noqdo aktar filin daadaheeya Mareykanka oo keligii gacanta loo geliyo. Barkad Cabdi qaabkiisana diidaysid ee dhuuban ama jirkiisa noocan ah ee adigu aad u haystiin inuu fool xun yahay, waa waxa lagu xushay inuu kaga mid noqdo filimada dalka Mareykanka. dhammaantood waxay tukanayaan salaada, laakiin sidii ay salaada u wadeen ayaa mar kaliya waxa dhacaya dhulgariir kaga gariirinaya dhulkoo dhan. laakiin masaajidka badankoodu way ka carareen, kaliya waxa soo hadhay iimaankii tujinaya salaada iyo koox yar oo ka dambaysa oo isku soo ururtay. dhammaantood waxay ka baqeen in masaajidku ku soo dumo, laakiin waxa la yaab leh sida uu iimaanku u taagan yahay iyo kooxda ka hadhay. intii carartay lama garanayo meel ku carartay. Alle subxaanahu wa ta'aala ayay hortaagnaayeen, laakiin markii ay baqeen iimaankooda daciif ah ayay carareen, waxaana u carareen meel kale iyagoo ka cararaya Alle subxaanahu wa ta'aala qadarkiisa, weliba iyagoo hortaagan markaa. Allahu akbar. waa arrin la yaab leh. inanta halkan maraysa magaceeda waxa la yiraahdaa Ayaan Cali. Ayaan Cali waxay tiri suuqa markaan marayo waxaan qaad ka taaganahay dad fara badan, waxaana ay tiri mar walba oo ay dadku iga hor yimaadaan waxay igu yiraahdaan waxaad u eg tahay ama aad tahay inanta caanka ah ee Rihanna. waxay tiri magacayga waxa loo bixiyay Rihanna, laakiin waxay tiri anigu Rihanna ma ihi, waxaan ahay inan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada. Ayaan Cali waxay tiri iskuulka markaan tegayo iyo goobaha aan wax ka soo iibsanayo ee aan ka soo adeeganayo iyo goobahayga shaqada dhammaan waa la ilaaliyaa oo waxay daba socotaa rag aan anigu samaystay si amnigayga loo sugo. waayo waxay tiri meel walba aan maro waxa laygu yiraahdaa waxa tahay Rihanna oo cidnayga ma ogolaato inaan ahay Ayaan Cali. la yaab. Alle subxaanahu wa ta'aala markuu dadka abuurayo ayaa qof walba waxa uu egyahay qof kale. waxaa laga yaabaa adigu inaad u eg tahay madaxweyne Obama
ama inaad u eg tahay dad kale oo caan ka ah dunida, laakiin markaad dibadda u baxdid ayuunbaad ogaanaysaa qofka aad u eg tahay, walow dadku aanay aqoon badanka cidda ay u eg yihiin. marka laga tago walaalaha ay wada dhasheen iyo faamiliga iyo qoyska dhalay, haddana waxaa laga yaabaa ciduun inaad u eg tahay oo aanad aqoon. subxaan allah.